kusoo dhawaada channelka Banaadir Films waa anigoo ah Liibaan Ibraahim. Waxaan idinka codsanayaa dhammaan daawadayaasha channelkan in aad channelka subscribe aad ku dhufataan. aad iyo aad u mahadsantihiin. Videogan ama muuqaalkan maanta waxa uu ku saabsan yahay cinematography waxa la yiraahdo ama habka loo duubo video professional ah ama dokumentariyada ama filimada oo kale sida loo duubo. qaybtan waa qaybtii koowaad. saddexda waxyaabood ee ugu muhiimsan, tan koowaad waa ISO-ga, tan labaadna waxa waaye shutter speed-ka, tan saddexaadna waa aperture-ka. haddii aad rabto inaad aad controlsho waxa la yiraahdo ISO-ga, shutter speed-ka iyo aperture-ka, waa inaad kameradaada marka hore aad ka dhigtaa manual. marka qaybta manualka ayaa taabanaysa kamerada oo waxa ka macnaha badana kamerooyinka markii aad qofku soo qaato badana waxay taagan yihiin ama badana qofku soo gadanaya ayadoo ah maxaa la yiraahdaa auto ah, automatic ah. marka automaticna maxaa la yiraahdaa camera qofka hadduu professional yahay automatic macnaha kamerada ayadii ayaa ku hagaysa oo ku controleysa, taana lama rabo. marka si aad ISO-gaadii, aperture-kii iyo shutter speed-kii aad u adeegsato hab professional, dadka professionalka ah waxay isticmaalaan kamerada manual ay u isticmaalaan. marka ma adeegsadaan waxa la yiraahdo automatic, maxaa yeelay kamerada ayada ayaa ku hagayso. marka sawirkii ama videoga aad rabtay sida adiga u rabtay uma helaysid oo uma soo saarayso. marka taana waxay noqonaysaa maxaa la yiraahdo hab aan professional ahayn. waxa ugu horeyso laga rabo waa inaad geysaa manual. kadib markaas waxaad helaysaa markaas ayaad macnaha isticmaali kartaa saddexdan waxyaabood aan idin soo sheegay oo ah ISO-ga, shutter speed-ka iyo aperture-ka. waa maxay ISO? ISO-ga waxa waaye meesha kamerada laga dheereeyo ama laga gaabiyo iftiinka. marka la rabo kamerada in iftiin badan loo yeelo ama la rabo maxaa la yiraahdaa in laga yareeyo meesha maxaa la yiraahdaa la isticmaalo oo la taabto ayaa la yiraahdaa meeshaas. marka waa meel muhiim ah. ISO-ga qayb weyn ayuu ka yahay sida saddexda waxyaabood aan soo sheegay: ISO, shutter speed-ka iyo aperture-ka. marka shutter speed-ka iyo aperture-ka iyo ISO-ga saddexdaba macnaha waxay qayb weyn ka yihiin muuqaalka video marka la duubayo ama sawir la qaadayo. si aad u hesho waxa la yiraahdo perfect exposure ama sawir ama muuqaal video isku dheelitiran, si aad u hesho oo aad u soo saarto, waxa la rabaa inaad saddexdan ISO-ga, shutter speed-ka iyo aperture-ka in aad taqaano sida loo adeegsado. kamerada sideeda markaa maqasho sawir markii la qaadayo ama video la duubayo, mar walbaba waxa waaye muhiimadda xoogga waxa waaye waa iftiinka. ereyga markaa maqashid photo macnaheedu waxa waaye waa iftiin waaye macnaha. marka ISO-ga marka waxa waaye waa sida idin kugu sheegay meesha laga dheereynayo lagana gaabinayo iftiinka kamerada. marka kameradan hadda muuqaalka idinkaga muuqdo waa Canon 700D. waa kamera aad iyo aad raqiis u ah oo qof walba uu soo gadan karo. hab professionalna macnaha video fiican oo aad u qurux badan duubi karta, sawiro fiican qaadi karta. marka kameradan marka ISO-geeda wuxuu ka bilaabanayaa 100 ilaa iyo waxa waaye 6400 inuu yahay ayaan u maleynahay. marka ISO-ga marka wuxuu leeyahay xadkaas, marka in laga gudbana lama rabo. markii aad rabtid hab professional ah, muuqaal aad iyo aad u qurux badan aad rabto, markii aad rabtid inaad duubto, waxaa la ogol yahay meel loogu talagalay ayaa jira ISO-ga. kamera walba waxay leedahay native ISO. native ISO waa maxay marka? waxa waaye kamerada cabirkeeda ISO-ga loogu talagalay ee inta aad ku kordhin kartid, inta aad ku kordhin karto iftiinka xad ayaa loo sameeyay. midaalaan hadda kameradan muuqaalka idinkaga muuqda ee 700D lama ogola inaad ka bixisid 1600 wixii ka badan. haddii aad ka bixiso waxaa dhacayo in muuqaalkii uu noqdo grainy ama shucaac uu yeesho oo taana marka duubistaasi ma noqonayso duubis oo hab professional ah oo qof film qaada maxaa la yiraahdaa shaqadiisa ay tahay inuu video duubo ama sawir qaado.
ma fiicna marka taa lama ogolo. Marka waxaa la rabaa marka ISO-ga marka maalintii oo kale markay tahay midaalaan maalintii badana ISO waxaa lagu duubaa 100 ilaa 400 sababtoo maalintii iftiin badan ayaa jira, qorraxdii ayaa soo jeeda, iftiinkii maalintii ayaa haysataa. sidaa daraadeed markii aad banaanka oo kale aad joogto meel banaan ah badana waxa waa 100 ilaa 400 lama ogola marka inaad ka bixiso 400 maxaa yeelay iftiinkii wuxuu ka noqonayaa haddii kale hadhooti waxaa ku badanaya too much maxaa la yidhaahdaa wuxuu noqonayaa iftiinkii ayaa ku badanayo muuqaalkii aad duubaysay wixina waxay ka noqonayaan markaas maxaa la yidhaahdaa inta markaas wuxuu noqonayaa nuurkii iftiinkii intuu ku bato ayaa wixii hadhooti waxay noqonaya waxaan la arki karin, waxaana ka lumayo wixii detailska ayaa ka dhumayo muuqaalkii aad duubaysay. marka maalintii marka waa 100 ilaa 400 inaadan dhaafsiinin. habeenkiina kaamiradan hadda muuqaalka idinkaga muuqdo oo 700D ah waa ilaa 1600 sidaan idin sheegay. marka maxaa la rabaa marka in laga taxadaro marka ISO-ga adeegsanayso misaal ahaan meel mugdi ah oo aan iftiin badan jirin habeen ay tahay oo kale misaal ahaan ayaa rabtaa inaad muuqaal ka duubto, video rabtaa inaad ka duubto. marka videogaas aad duubayso marka nalal badan ma haysatid, meeshii nalalka iftiinka ayaa ku yar, maalin ma ahan oo iftiinka maalinta ma haysatid oo habeen ayaa joogtaa. marka maxaa marka kula gudboon waxaa la rabaa marka inaad native ISO-geeda inaadan dhaafsiinin. misaal ahaan hadda Sony-dan hadda ani wax ku duubayo inaadan dhaafsiinin 6000 inaadan dhaafsiinin. tan kale hadda muuqaalka idinkaga muuqda ayadana oo Canon 700D ah inaadan 1600 dhaafsiinin. haddii marka aad misaal ahaan tusaale ahaan hadda video muuqaal yar aan idin tusinayaa muuqaalka hadda halkan idinkaga muuqdo. muuqaalkan waxaa aragtaan in videogii uu yahay maxaa la yidhaahdaa shucaac uu ku badan yahay oo uu videogii maxaa la yidhaahdaa waxaa aragtaan waxyaabaha shucaaca yaryarka ah sida idinkaga muuqdo. haddii aan idin zoom gareeyo videoga aan soo dhaweeyo waxaa aragtaan inuu yahay video muuqaalkii uu yahay muuqaal shucaaca ku badan maxaa yeelay iftiinkii nalalkii ayaan damiyey oo aan yareeyey, nalalkii ayaan wada damiyey. markii aan damiyey nalalkii waxaan shiday hal nal camal, backgroundkii iyo meeshii aan wax ka duubayay inteed ugu badan waxaa waaye mugdiga ayaa ku badan, iftiinka aan haystana aad iyo aad ayuu igu yaryahay. marka waxaan isku dayay marka inaan ISO-gii dheereeyo oo aan meel sare geeyo muuqaalka hadda si idinkaga muuqdo sababtoo maadaama aan iftiin badan aan haysanin waxaan isku dayay marka inaan iftiinkii aan badiyo ISO-gii aan meel sare geeyo. waxaana dhacaysa marka arrintaa marka fiirsha waxaa dhacaya marka in muuqaalkii uu shucaaci ku bato. marka hadda zoom gareeyo sida aragteen shucaacaas tirada badan ee meel walba macnaa saas yani dhaqaaqaas aragtaan yaryarka shucaaca waxaa shuruuraxaas yararka ah. marka wuxuu sababayaa muuqaalka inuu noqdo muuqaal aan professional ahayn. marka taana waa in laga taxadaraa oo aan la adeegsanin maxaa la yidhaahdaa ISO-ga inaan xadka laga bixinin oo lagu ekeysiyo macnaha meesha loogu talagalay. haddii kaamirada ISO-geeda ay tahay 5000 native ISO-geeda meesha loogu talagalay uu yahay 5000 oo kale 5000 inaadan dhaafsiinin. haddii ay tahay 4000 inaadan 4000 dhaafsiinin. marka mar walba waxaa fiican horta inta aadan ISO-ga mar walba aadan ku darin inaa iftiin natural ah haysatid sida maalintii oo kale ama nalal ah haysatid oo aad keensatid. waxaa la yidhaahdaa iftiinkaaga adiga awoodsid ama qol ama meel hool ama meesha wax ka duubayso inay leedahay nalal fiican ay leedahay si aadan hadhowtay ugu qasbanaan inaad ISO-gii macnaha aad kor u qaado oo aad zaa'idiso oo hadhowtayna maxaa la yidhaahdaa aysan kugu dhicin maxaa la yidhahdaa inuu macnaha kaa noqon macnaha muuqaalka aad duubayso mid aan professional ahayn oo uu noqdo mid amateur ah oo aan fiicnayn. marka qaybta labaad ee videoga soo socda waxaan ku sharaxi doonaa shutter speedka waxa uu yahay. qaybta saddexaadna insha Allah oo ah isbuuc ka sii dambeeya asigana waxaan ku sharaxi doonaa aperture-ka waxa uu yahay. dhammaan inta channel-ka soo gasha aad iyo aad u mahadsantihiin. waa anigoo Liibaan Ibraahim. inta subscribe ka saarta aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. inta aan saarin waxaan idinka codsanayaa in aad subscribe ku dhufataan channel-ka. muuqaalada noocan oo kale ayaan isku dayayaa hadda kadib in aan soo dhigo channel-ka si aan dadka ugu faa'iideeyo duubista videoga habka professionalka ah
ama cinematography-ga macnaha qaabka loo duubo videoga filimada maxaa la yidhahdaa filimka ama documentary-da ayaan rabaa inaan idinla wadaago oo aan rabaa inaan idinkugu faa'iideeyo aad iyo aad u mahadsantihiin